labada mas'uul ayaa ka wada hadlay amniga gobolka gaar ahaan dagaalka ay Soomaaliya kula jirto argagixisada iyo sidii dowladda Qatar ay uga geysan lahayd gacan xoog ah iyadoona la taageerayo hay'adaha sirdoonka iyo nabadeynta dalka. Maxamed Abuukar Islow Ducaale wasiirka amniga qaranka Soomaaliya ayaa warbixin ka siiyay ra'iisul wasaaraha Qatar dhacdooyinkii foosha xumaa ee dhacay 14kii bisha ilaa 28kii bishii Oktoobar oo ay argagixisada ku gumaadeen dad maato ah. Waxa uu sheegay inay hay'adaha amniga Soomaaliya ay dadaal xooggan ugu jiraan sidii loo hirgelin lahaa istiraatiijiyad kooxaha nabadiidka ay uga caagan doonaan caasimadda si xasilooni buuxda loo gaaro. Ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Sheekh Cabdullaahi bin Nasser bin Khalifa ayaa wasiirka amniga uga tacsiyay dhibaatadii dalka ka dhacday. Waxa uu ballan qaaday in dowladda Qatar ay diyaar u tahay taageero dhaqaale iyo mid lagu xoojinayo hay'adaha amniga Soomaaliya si muuqata ayna uga qayb qaadan doonaan ciribtirka kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab.